heesta beledweyn waxay kaalin hore kaga jirtaa heesaha loogu jecel yahay ee Soomaalida isma barayna maanta gobolka ku luuqeeya iyo abwaanka ay ka soo maaxatay midna balse waxaan wax yar bidhaamin doonaa qisada dhabta ah ee ka dambaysa heestaas beledweyn abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ah qofka ay qisada ku dhacday ahna abwaanka leh miraha heesta goor barqa ah abwaanka oo ka boganaya daawashada barwaaqada webiga iyo beeraha ku dhinac beeran oo taagan bartanka buundada liiqliiqato oo ku beegan dusha sare ee webiga beledweyn ayaa waxa ka soo horbaxay dhammays dumar oo isagu ku sifeeyay boqoradii hablaha gabar bilicsan oo timatidcan oo deydsan leh ayaa isku beegtay oo barida kula booday abwaan hadraawi oo quruxda gabadhaas la beegagsan kolkaas sidee buu ahaa dareenka hadraawi maxaase dhex maray beerlula iyo abwaan hadraawi qacdii hore ee isbarashada webigaas magaalada ku dhex yaala oo aan baabuurta ma martay dadku baa maro waa mid qoriyo waxa doonaysa handuulka bahalka yar carruurta loo xidho maradan loo xidho maaragtay marka la seexinayo exactly waa sidaas oo markaa aad bay u kooban tahay oo qabeetana marka lagu dul socdo laftiga labada gaftiin bay ka xidhan tahay oo maaragtay inteeda kale saas isaga lulataa moogta biyuhuna webiguna wuu hoos maraya liiqliiqataa la yidhaha waa caan markaan buundadii sidaa u soo korray ayaa inkastoo aan buundada hore u arkay haddana dee qof magaalada degan iyo qof kulleyba markaa yimi isku xiisa maaha waa yar hakadayoo xagga hoose xoolaha ka cabaya dad baa ka dhaansanayo marka iyagina way gudbeen oo dhir dhinaca kale ku taallay isoo istaageen anna cabbaar baan markaanu dhinacaa ka soo korray cabbaar baan iska yar daawaday xoolihii iyo dadkii iyo kuya maaragtay xaggii hoose weygii uu kaa hoosey cabbaar markaa saa u daawaday waan sidaan sidaa u ahaan baan dabeetay istadbay waxaan isiri dhaqaaq gaftinkii aan buundada ka joogay mooyaane dhinacii kale ayay gabadhi ka soo kortay boonkaas bridjka waa goor subaxa 9:10 gabadha timo dheer bay leedahay timuhu waa u furfuran yihiin xagga dambena cadceedii baa timaha ka haysa dabeedna istadabkii aan istadbay sida dhaqaaq waan dhaqaaqi kari waayay dabeedna waxaan isiri talow hal ama laba ma ku tiraahdaa gabadha iyo war gabadha Soomaaliyeed waa la iska yaqaano haday doonto markay ku caayaysaa aniga inta naftaydii baa murmaysa waxba ha ku odhanne intii aan murankii intaan ishayay gabadhii soo dhawaatay oo dabeedna inaan faduul meesha u taaganahay bay aragtayoo dabeedna waan eegado waan baqayaa anigu ma ogtahay dabeedna markaas arkay gabadhii oo yar muusoonaysa yar qoslaysa dabeedna waxaan war gabadhii mala waa mid reer magaalo ku caayi mayse iska yara faduuli laba eray oo carabiya كوري وحي سبحان من خلقك سبحان من خلقك أنا واحد نسهن إلهي كو أبو ريم مكتما كي كو أبو هي نسهن أنا وإري أما عرب تبغى عربي ولا سبحان من بركة وحلا ليا أنت أسكافر كان سبحان من خلقك أي شيء عجيب كروح وها إذا كبردي ماركتي وشوت عرس عربي كنت واحد تري شكرا بيتري شكرا تبدأ إلا بندي بدي احتاجنا هاي كبردي بركة صوتين ما لقى دافع مش كتير ويستهتي ما هذي قبل هذا مش التاجي ولا فضلي أفكار لك عليه يا برهات لو يحوم كده لو أنا عسني منه كانوا كل واحد كانوا حاجة نتكتمي بعدين عاد كتمي بعد كنتي مسلين عنا دو صوت سيسكو كلسوني لي فقالني مالي أفتهم لي هي قبل واحد تدي ما حاجة أنا كي يبان تجنه حقيقة وهي مركا أنت أسمرك إلى عدي أنا قبل قبل بالله يقول شوي قبل دي يسكت هذا كل دول إيه كريوه isbarasho iyo hadal gaaban kadib abwaan hadraawi waxa uu kari waayay inuu hadal haba yaraadee dhaafsado beerlula balse iyada ayaa mar qura la soo booday ma jeclaan lahayd inaan ku soo baro xaafadayada muxuu markaas abwaanku ku jawaabay qofka talaadadku kala bruut sareeya markii aan laga soo bixi waabay tilmiyaad jeceshahay meesha aan deganayna ku soo waaba caynka cajiib si iska nacasnimo waxaan ku yiri ha oo runtii aan markaa waxba ku fadhiin ujeedo lahayn oo iska dhehun way istadabtay waxa tirina keen mar baa dee
had iyo goor waxaanad ku talagelin markaad la kulanto wash bay kaa tidhahdaan moogti inantii baa sidii neef xoolahay wadato iska daba galay buudadii baanu ka dhammaanay inamadii baanu sii dhaafnay geedkii bay hoos joogaan waxay u qaateen gabadha inaanu isgarannay maan odhan isuga iyo iska taga midoo dee waanigan ma joogo markii la saldhigtay gurigii Beerlula Abwaan Hadraawi waxaa lagaga naxsaday su'aal kale oo kadisa taas oo ahayd gurigii bay gashay kursi bay ka ayay tiri kulle waxaa jira wax cajiib ah oo harkii galay buntadii dadkooda mimarayay kugu kallifay inaad iskay hortaagtidii ma ii sheegi karaysaa waxa kuu qasbay inaad halkii maaragtay iskay hortaag waxaan ku yidhi way jirtaa bal qabsoo baan idhi taariikhdayda iyo noloshayda waa markii ugu horreysay meel bannaan aan gabadh is hortaaga baan ku yidhi run baanay ahay laakiin imika kuu sheegi maaye markaan tago raadiyo muqdisho waxaan idhaahdo raadiyo muqdisho ka dhegayso waayahay bay tiri imisaad joogaysaan bay tiri waxaan idhi barnaamijkaasaanu sidnaayo 2 habeen ayaanu joogaynaa dabeedna waan noqonaynaa waxay tiri malaa waqtigii qadada markay aragtay inaanay raganimo igu jirin malaa waqtigii qadada iska tago bal 2 habeen markaa barnaamijka dhigtaan haynoo ahaato waa cajiib talo maxay damacday waayahay baan ku yidhi waa iska dhaqaaq habeenkan la qabanayo xafladda dadweynaha magaalada waxay u soo baxeen inay fiirsadaan riwaayadda ay jilayaan kooxda hanuuninta oo uu qayb libaax leh ka qaadanayo Abwaan Hadraawi waana jilaaga ama aktarka matalaya Sayid Maxamed Cabdulle Xasan maadaama ay majaajiladu ku saabsaneed halgankii xurriyadda Abwaan Hadraawi oo taagan masraxa isla markaasna ay eegayaan badi dadkii magaalada oo u soo baxay xafladda xiisaynayaan oo indhaha lagu hayo ayaa marqura hoostiisa ka arkay qurux badantii qalbigiisa jiidatay ee Beerlula cajiib talow maxaa ku dhacay ilqabadkii boqoradda kadib in Cabdulle Xasan ma bedelay mikrofoonka ma soo taagay kulliba dadkan bahalaha riwaayada dhiga waa iska caadi markay meesha soo koraan indhaha waxay siiyaan dadka saasoo baan isha u mariya dadkii inantii kursiga ugu horeeyay soo fadhidaan balad bageerarkii 10 habeen akhriyay aad adigu aliftay balad bahel hirig qoladii daraawishtadeeda ila socotay hoostayga gujinaysa inta dehay hadal halka kii cali dheere iyo kooxda inteedii kale oo xaqii jooga baqsinka yaraada halka ay kala hadlayo maxaa kugu dhacay wad wallahi bay ka tahay waan soo qaban waayay markii dambe aan arkay inaanu baari baxay hadal iyo waxbaan isku jacburiyaan ka warhayno dabadeetana si degdeg ah meesha uga soo daadego waa leeyahay maxaa kugu dhacay waan xanuunsanaya isaga oo kursi isaga fadhiya fikiraya oo madluunsan ayay ku soo kudisay Beerlula waxaanay ku salaantay eray kaftana kaas oo ahaa haye Sayid Maxamed Cabdulle Xasan